ururka Abu Huraira Charity Organization oo urur ka shaqeeya waxyaabaha khayriga ah ayaa 12 hablood ay baraan dawaarka kuwaas oo ay ku baraan xaafadda State House-ka ee magaalada Hargeysa. Waxaa ku soo booqday mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada, ganacsato iyo mas'uuliyiin kale. Ururkan ayaana noqon doona mid hoos yimaada wasaaradda waxbarashada qaybteeda waxbarashada dadban. Gudoomiyaha ururka Abu Huraira Charity Organization ayaan Cismaan oo halkaasi ka hadashay waxay faahfaahisay qaabka ay wax u baraan ardaydaasi. waxaanu maanta joognaa State House-ka oo hablihii dawaarka baranayay ay dawaarka ku baranayaan. marka maanta waxa kormeer noogu yimi DG-gii iyo agaasimihii oo nala jooga waxbarashada. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. waxaan in yar tafaasiil ka siinayaa hawshu sida u socoto. aad iyo aad iyaga waqtigooda qaaliga noo soo huray. aad iyo aad baan ugu mahadsan yihiin. kolley waanu wada shaqayn doonaa, wada shaqayn fiican baa naga dhaxayn doonta, kala dhammaan mayno insha Allah. hablahan maanta wax halkan ku baranaya waa dufcaddii saddexaad ee noo socota. waxaa nooga soo baxay dufcad hore oo digaalo ka soo baxday oo 10 hablood ahaa oo 10kiiba fuleen alxamdulilaahi rabbil caalamiin. laba waxaanu meherada yar baan u furay, 8 kalena iskood bay u shaqaystaan, wax baanu ku kaalmaynay alxamdulilaahi rabbil caalamiin. shaqadu si fiican bay u socotaa. qaybtii labaad baa iyaguna ka socota digaale oo inantii wanka ka gashay digaale baanu macallimadu uga dhignay falilaahi alxamd. halkanna 12 hablood baa ku baranaya. waa maasha Allah tabaaraka Allah, si wanaagsan wax noogu socdaan. waxbarashadii baanu imankana is wada dhexgelinaa insha Allah. oo tii kale jahliga lagaga saarayay maxaan ku raadayay dadkeenana waa barbar wadaynaa insha Allah. ahayd waxbarashada dadban ama si u taqaanaan dadka waaweyn waxbarashadooda in yar yarba waa la raacin doonaa insha Allah. Sidoo kale halkaasi waxaa ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sidoo kale agaasimaha waaxda waxbarashada dadban ee wasaaradda waxbarashada. ugu horeyn ururkan Abu Huraira runtii asaa noo sharaxan ayaan iyo qadar iyo tiimkii kala shalay noo yimi urur markaa charity oo isu tagay oo ka kooban markaa dad ganacsato iyo dad kale oo shaqaalaha oo xoogoodii maalkoodii ku tabarucaya markaa inay dadkooda jahliga ka saaraan. waxa aad iyo aad loogu farxo oon bogaadinay halka dagaal ka sii wadaan. seen la socono markaa waxbarashadu waa furaha nolosha weyn. markaa qof waxbarta dee qarankii oo dhan baad markaa ka qayb qaadatay in horumarkiisa aad ka shaqayso. dadkeena waaweynna inta wax qortay wax akhrida ama inta xirfad leh markii la baadhay waxa weeyaan xirfadu way nagu yaryihiin, barta aad iyo aad bay u yaryihiin. laakiin akhriskii qoraalkii 30% baa wax akhrida. micnaheedu waxa weeye 70% baa dadka waaweyn si wax loo qoran magacooda qori karin ama aan akhriyi karin. arrintaas markaa halis weeyaan. xaggii cibaadadii halis ku tahay qofka dee diintiisa iyo salaadiisiiba halis gelaysa. dhaqaalihiisiiba ayaa baaba'ayo, waxba qofka ma shaqaysan karayo. amnigiibuu khatar ku yahay oo waxyaalaha argagixisadaa soo dhex mari karta. caafimaadkiiba halis ku yahay hadduu dhakhtarku warqad khaldan u soo qoro in dawo khaldan la siyaabo laga yaabo haddaanu akhriyi karin waxa loo soo qoray. marka waxaan u baahanay dadkeenu inay wax qoraan waxna wada akhriyaan. xukuumadduna hogaamiye mudane Muuse Bixi Cabdi qorshaha waxbarashada 5 sano waxaa hiigsigu yahay markaa in 80% 70% dadkeena la gaarsiiyo inta wax qortay wax akhriyo. 2030 hiigsigeenu waxa weeyaan in dhammaan muwaadiniinta reer Soomaaliland oo dhan waxna qoraan waxna akhriyaan. waxaan aad u soo dhaweynaa ururkan oo wada shaqayn weyn yeelan doono. waxaa jira meelo badan oo wadankeena ka mid ah ama Hargeysaba ka mid ah oo ay ka socdaan waxbarasho akhris qoraal xirfado dawaar oo ay wasaaraddu diyaarisay. waxaanu leenahay nagala shaqeeyo nagula soo dhawaada ka saarida jahliga iyo bulshadeena. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. waxaad ahtiin qayb anaga naga mid ah mas'uuliyad anagana saarneed naga furtay nala fudeydiyay. aad baad u mahadsantihiin. waxaan aad iyo aad ugu bogaadinayaa gudoomiyaha ayaan iyo xubnaha kale ururka ee hawshan xilka iska saaray. ugu dambeyntii halkaasi waxaa ka hadlay ganacsato iyo mas'uuliyiin kale. halkan waa State House-kii Abu Huraira Charity waxay ka graduate garoobeen joogay magaalada Leela Digaale oo 12 hablood ka soo baxeen. halkaasoo dadkaasi haddii dawaar u baahdaan meel fog ay ka soo dhaqaaqayeen iminkana 12 qof bariiskoogana soo saaraan waxqabadkoogiina ay dadkii wax u tareen intaasoo masaafada soo maraysay. halkanna waa State House-kii shacbigan wuxuu meel ku gaari karaa iyadoo loo abuuro shaqo, iyadoo wax la baro, iyadoo la isku tiirsado oo wada jir loo shaqeeyo. waxaan u mahadnaqayaa
abu hureyre charity ayaan cismaan yuusuf iyo macallimiinta ku tabarucday xubnaha charity-ga ururkan abu hureyre charity waxaan leeyahay ilaahay ha idinka abaalmariyo waxa aad bixiseen ururkani waa urur isku tashaday oo gacantiisa ka bixiya jeebkiisa ka soo saara inay wax ku qabtaan yacni maatida ugu adeegaan jahliga dadka kaga saaraan qofka u diyaarinaya in uu wax barto oo uu ku shaqaysto waxaanan leeyahay ma aha inaynu hay-ad uun wax ka sugnay innaga hay-ad kasta ka dhaqaalo badan anuu xaggan waxaanu ka caawinaynaa wax allo wixii ay uga baahan tahay qurbaha ama maraykan ama yurub ee aanu kaga soo caawin karno inaannu anaguna ku soo darsanno intayada guulad cunaabi mm t v